wasiirka beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal shaqo ku jooga gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa uu saacadaha dhinaca qodaalka ee wasaaradda beeruhu waxa gobolka Saraar soo gaarsiiyay saacadaha kala duwan ee dhinaca qodaalka ee wasaaradda beeruhu ugu talagashay beeraleyda kala duwan ee gobolkan Saraar. wasiirka ayaa waxa uu saacadaha qodaalkan ku wareejiyay munaasabada xarunta maamulka gobolka Saraar kula yeeshay ugu horreynba wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumin Saad oo faahfaahin ka bixinaya qaybaha kala duwan ee ka kooban yihiin saacadaha kala duwan ee lagu talagalay beeraleyda gobolka Saraar. aad iyo aad baan runtii soo dhaweynta ilaa xalay dawaynu is wareysanay warinooba kala seekana runtii saa gudoomiyuu sheegay socodkaygan waxa weeye dawaa u koolgaridda xaaladda dalka ay dadweynaheena deegaankan ku jiraan oo runtii aan isla garanayno ognahay inay dad xoolo marka ku teesaan marka hore xagga xoolaha laakiin hadda xoolihii ka baxeen marka inta imika anagu waftigan hogaaminaya wasaaradda beeraha oo runtii ay odayaal waaweyn oo wasaaradda ay la socdaan agaasima waaxeedyadii wasaaraddu ay la socdaan intayadaas waxaan u wada soconaa inaan u koolgalno xaaladda deegaankan waynu ognahay oo waktiga aynu ku jirnaa hadda waa waqti roobaad xukuumadda imika hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waxay dhiirigelinaysaa wax soo saarka waxaynu isla wada garanay inayna kulli marnaba ku tiirsan karin cunto dibadda inooga timaada iyo khudaar dibadda inooga timaada waxaynu ka wada tashanaa sidee baynu dalkeena wax ugala soo bixi karnaa inagu maxaynu qabsan karnaa maxaad inagu dawladda taakula uga baahantihiin maxaa laynaga caawinaya marka runtii waxaan isleeyahay imika maanta ahaan waxa anagu aan wadno iyo baahida gobolka aad bay u kala weyntahay deegaanka dhibaatada haysata iyo waxa anagu wadnaa u kala badan tahay waanu ognahay laakiin waxaad ogeydeen guddidii kasoo kabashada abaaraha muddadii dhaweyto waxaanu kala wareegnay saacadahaanu kala wareegnay oo kuwii sanadkii horeba la diyaariyay waqtiga ka dhacaya ayaanu gobol iyo degmo walba wixii kaga soo hagaagay baynu sidnaa marka Saraar waxaanu sidnaa 110 qoys oo 3 saacadooda ayaanu sidnaa oo nimka wareejin doonaa 100 inaan ku jiro isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka oo inaguna goobjoog wasaaradda ay ka ahaanayaan barasaabkii iyo xogeeyay iyo miirkuba 100 kaas waxaanu ku talagalnay in lagu sii bilaabo bari lagu sii bilaabo 100 kalena waa wax maqnaanay maan waa wax degdeg u soo baxay markaad hawsha ay bilaabanto. Dadweynaha wasaaradda beeraha gobolka Saraar Faysal Cismaan Saciid maayir ku xigeenka degmada Caynaba Nuur Ila Ducaale iyo barasaabka gobolka Saraar Axmed Xaashi ayaguna si weyn ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda beeraha oo ay ku tilmaameen in saacadahan qodaalka ee gobolka Saraar uu sida ay yihiin kuwa wax weyn ka taraya dhinaca dalagga wax soo saarka. waftiga hogaaminaya wasiirka wasaaradda beeraha barasaabka gobolka Saraar xildhibaanada waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxa ay noo yimi oo nala joogo wasiirka wasaaradda beeraha oo ilaa shalayba kormeer iyo shaqo ku joogay magaalada gobolka Saraar Caynaba haddana waxaanu joognaa inuu la wareegno inagu wareejiyo deeqdii uu inoo siday ee qodaalka ahayd taasoo ka kooban 110 qoys ayaynu imika la wareegaynaa. aad bay farxad noogu tahay inaad adigoo ku kurgelaya baahiyaadka jira ee xagga beeraha inaad noogu timaado gobolka Saraar oo aad yani baahida jirta iyo wixii ka jira aad nala ogaato aad baan ugu faraxsanahay wixii aynu iska wareysanay baahiyaadana wataan isu sheegnay kadib wasiir imaatinkaaga iyo wixii aad noo sido iyo u kuurgalka dalagga wax soo saarka beeraha iyo hubsashadoodaba waanu kugu mahad celinaynaa gobolkana waanu kugu soo dhaweynaynaa wixii aad u keentayna waanu ka gudoomaynaa aad iyo aadna waad ugu mahadsantahay. Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland.